maxaad ka taqaanaa qisada heesta cajiibka ee dadka hayska weynayn inaad kali wax garad tahay hayska dhigin walaale. heeskan waxa alifay abwaankii weynaa halgamaagii madaalaha ahaa ee xoreyntii dalka gees ay tahayba ka soo qayb qaatay. waa madhaafaankii Talyaaniga oo gumaysta cad ah maansadiisa iyo mabaadi'diisa kala hor yimid Ibraahim Sheekh Saleebaan oo Ibraahim Garle loo garan og yahay. heeskan Ibraahim waxa uu Maxamed u dhiibay markii uu Jabuuti tagay. Maxamed Mooge saaxiibkii Hadraawi oo waayihii Jabuuti iyo Maxamed Mooge ka warramayo ayaa yidhi Maxamed Mooge meeshii loogu jacaylka badnaa Jabuuti ayay ahayd. guud ahaan bulshada reer Jabuuti ayuu si fudud qulubtooda ku kasbaday. taa uu Hadraawi kaga sheekeeyay waxa uu makhraatigeeda ku furay Ibraahim Garle isagoo uu yidhi Maxamed Mooge markii uu Jabuuti noogu yimid ayaa riwaayad uu nagala qayb galay waxa uu ka qayb qaatay heesa ay ka mid yihiin maxaa dayr cad geel halaabo. markaa dadkii reer Jabuuti oo dhan ayaa la amakaagay heeskan yaab kale. muddo aad u badan ayaa la weydiin jiray ninkii maxaa dayr cad geel halaabo may. runtii aniga fankayga ninka kor u qaaday ee reer Jabuuti oo dhan baray Maxamed Mooge ayuu ahaa. abaal weyn ayaan u hayaa ayuu yidhi Ibraahim Garle. heeskan oo markii hore ay wada qaadeen Cabdinuur Allaale iyo Faadume Axmed. Cabdinuur Allaale oo markii heeskan la curinaya goobjoog ahaa ayaa waxa uu yidhi nin abwaan ah ayaa Jabuuti noogu yimid markaas ayuu codsaday in riwaayad uu sitay loo dhigo. Ibraahim iyo kooxdii uu watayna riwaayad ayay markaa damacsanaayeen inay bandhigaan. waa uu dalbaday oo tiisa dalabkiisina waa la aqbalay oo tiisa ayaa la hormariyay. sidii ayaana loo yeelay oo tiisii ayaa loo dhigay. haddana mid labaad ayuu codsaday oo sitay oo sidii ayaa haddana loo yeelay oo tiisii ayaa loo hormariyay. mid saddexaad ayuu haddana codsaday markaas oo uu damcay in haddana mar saddexaad loo dhigo. markii uu soo hadal qaaday ayaa Ibraahim Garle si kaftan ah meerisyada hore ee heestan u yiri inaad kali wax garad tahay ha iska dhigin walaale. halkaas ayayna heeskan ka curatay. dadka hayska weynayn beedkan wiil ku qaado waxa sameeyay Ibraahim Garle halka beedka gabadha ay qaadana uu sameeyay Cabdiqays. heeskan qisooyin kala duwan oo cajiib ayuu ka warramayaa. marka uu Maxamed Mooge qaadayo waxa uu ka horreysiyaa arar cajiib ah oo uu ka soo qaatay gabaygii Faarax Nuur ee midhihiisu ay ka mid ahaayeen waxaan ahay nin waayaha adduun wax uga muuqdaane.